su'aasha shanaad waxay ku saabsan tahay ruux sanawaad fara badan aan soomin oo ogaan aan u soomin cudurdaar la'aan soonka uga tegey muxuu xukunkiisu noqonaya? jawaabtu waxay tahay soonka ramadaan qofka ogaan uga taga, cudurdaar la'aan ogaan uga taga oo sidaas caadaystaa waxa uu ku jiraa dembi aad iyo aad u weyn, waxaanu ka mid yahay kuwa faasiqiinta ugu xunxun buu ka mid yahay. bale culammada qaarkood waa gaalaysiinayaanoo waxay leeyihin milladdaba waa ka baxay ayay leeyihin. ha yeeshee sida jumhuurka culammadu u badan yihiin waa inaannu markaa haddii aanu waajibnimadii dafirin oo uu qirsan yahay inay soonku waajib yahay, inuu markaa aanu milladda ka baxayn bilkulliya si dhammaystiran uga baxaynin ayaa markaa fiican oo arjaxa oo jamaahiirta culammaduna ku tageen. ha yeeshee wuxuu ka mid yahay kuwa faasiqiinta ah ee markaa aad iyo aad fisqigoodu u daran yahay buu ka mid yahay, waxaana looga baqayaa inuu gaalnimo ku dambeeyo caaqibadiisu xumaato ayaa looga baqaya. waxaaba soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay qofka markaa afura iyadoo weli markaa qorraxdu aynay saani u dhicin in aakhiro la cadaabayo, oo wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in la tusay dad markaa waxaa la soo laalaadiyey oo halkaa markaa waxa weeye yacni boqnaha markaa inta wax laga sudhay ayaa markaa la soo foorariyo sidaa loo soo laalaadiyey, qowlalladoodana waa la jeexay, markaasaa dhiiggu ka da'ayaa labada qowlal inta la jeexay. markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwani maxay ahaayeen, waxaa lagu yidhi waxa weeye waa kuwii afuraayey intaan markaa waxaa wakhtiga afuraadda la gaadhin oo afuraaddu xalaal u noqonin ka hor dadkii afurayey weeyaan. bimacnaa daqiiqad yar ama markaa daqaa'iq yar ama sekanno ka hor intaan qorraxdu dhicin dadkii afuray ayaa in saa loo ciqaabayo laynoo sheegay. bal maxaad moodday kaan marka horeba soomin, bal maxaad moodday kaan markaa waxa bila soomin, bal maxaad moodday ka caadaystay maxaad u malaynaysa? marka ciqaabtiisu inay darantaad ka garanaysa. yacni alimaamu dahabi wuxuu odhanayaa waxa muslimiinta agtooda muqararka ah oo ka sugan qofka soonka ogaan uga taga oo cudurdaar la'aan soonkii uga tagaa inuu markaa ka xun yahay ka sinaystiya ka khamriga cabbaba inuu ka xun yahay baa mu'miniinta agtooda muqararka ah buu odhanaya. bal waa tuhmaystaan buu idhi, diintiisaba waa tuhmaystaan, waxaanay u maleeyaan buu idhi markaa inay zandaqe iyo gaalnima inay ku sugan tahay oo uu diintii markaa waxaa ka baxay mala xun bay saa uga maleeyaan ayuu alimaamu dahabi u odhanayaa siduu kitaabkiisa alkabaa'ir ku sheegay. ramadaannada uu ka tegay ee badanna waxa weeye inuu qalleeyo ayaa saaran oo qadaagii ka dhici maayo. qallaha uu qallaynayo ee soonka ramadaan waxay ku tahay mid ku waajiba ayay tahay, kamana dhacayo, waxay noqonaysaa inuu markaa cadadkii intii uu markaa afuray ee cudurdaar la'aanta ku afuray waa inuu markaa waxa qalleeyaa, waana inuu ka toobad keenaa oo allah u toobad keenaa, rabbi u soo noqdaa, towbad la yimaaddaa, isku cilkaambiyaa, dembigii ka fuqaa, yacni markaa go'aansadaa inaanu dib ugu laabmayn, shuruudihii towbadda la yimaaddaa. mar labaadkana waa inuu qalleeyaa soonkii. hadduu garan waayo intay ahayd yacni soonka waa wadayaa ilaa uu is yidhaahdo waxba kuguma hadhin, waad dhammaystirtay ilaa uu is yidhaahdo soonkii waa qallaynayaa, waa la imanayaa, oo waxa waye fadaynullahi axaqu an yuqdaa, daynka ilaahay baa u xaqnimo badan in la gudo, u xaqnimo badan sida xadiiska saxiixaba ku soo aroortay. wakadalika marka waxa weeye waman istaqaa'a falyaqdi, marka waxaweye soonkii in la qallaynayo adilay markaa leedahay, marka waxay noqonaysaa inuu markaa qallaynayo ayay noqonaysaa, soonkaasina ka dhici maayo.